Cabdalla maanta waxaa la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir saakay ayaa sida loo sheegay waxaa lagu wareejiyay xarunta dambi baarista ee CID maanta waxaa la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir laba arrimood ayaa sheegeen CID-du sheegtay in lagu eedeynayo oo loo heesto arrinta koobaad waxaa waaye inuu jibiyay xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta arrinta labaad waxaa waaye inuu baahiyay muuqaal sir ah waxaa la weydiiyey muuqaalka sirta ah iyo xeerkii markaas diyaar uma hayn waxaa maxkamaddu ay amartay in Cabdalla maxkamaddu lagu soo celiyo maalinta Axadda oo soo socoto lana keeno xeerkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee uu jibiyey iyo muuqaalka sirta ahaa ee uu baahiyey maanta waxay ahayd horgeyn waxaa la yiraahdaa marka ugu horeyso oo qofka la eedeynayo la hor keeno maxkamadda marka cadeymihii iyo waxyaabihii ay sheegeen inay soo cadeeyaan ayaa la amray maalinta Axadda ee soo socotana ay maxkamaddu ku soo celiyaan marka Axadda ayaan sugaynaa inay keenaan xeerkii uu jibiyey iyo sidoo kale muuqaalka sirta ah ee uu baahiyey